xanuunka jilbaha ama balooyada waa cilad ama dhibaato ay ka sheegtaan qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Dadka ciladan ka cabanayo ama jilba xanuunka leh waxaa laga yaabaa in ay soo raacaan calaamado ay ka mid yihiin barar ku imaado hareeraha jilbaha. Sidoo kale qofka wuxuu isku arki karaa in uu awoodi waayo in lugihiisi uu laabo amaba uu fidiyo xanuun jilbaha ka jira aawadeed. Sidoo kale waxaa laga yaabaa jilba xanuunka inay u soo raacaan casaan ama gaduud ama kuleel hareeraha jilbaha. Sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay la jiraan xumad ama qandho jilba xanuunka. Waxaa kaloo suurtagal ah in qofkii awoodi socodkiisa ay yaraato ama qofkii lugihii awoodi waayo in uu dhaqdhaqaajiyo. Haddaba intaan u gudagelin waxaan si gaar ah kaga codsanahay in aad muuqaalkan share gareyso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xir si ay ugu faa'iideystaan. Sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo. Sidoo kale xagga hoose ka wac ama mention ku dheh qaar ka mid ah asxaabta si ay ugu faa'iideystaan. Mahadsanid. Su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa keeno xanuunka jilbaha ama balooyada? Xaalado badan ayaa keeni kara ama xaalado badan ayaa loo aaneynayaa sida dhaawacyo ku yimaado jilbaha. Sidoo kale dhaawacyada ku yimaado seedaha, murqaha iyo carjawda oo ku hareeraysan jilbaha. Waxaa kaloo keeni kara ama dhaawacyada soo gaara jilbaha waxaa ka dhasho sidoo kale in dhaawac uu gaaro kiishka dareeraha uu ku jiro. Waxaa laga yaabaa inay keenaan jab ku yimaado lafta yar ee jilka ku jirto. Sidoo kale waxaa keeni kara ama loo aaneynayaa buurnida ama miisaanka qofka uu kordho. Waxaa kaloo keeni karo infekshanada ku dhaca kala goosyada jirka iyana way keeni karaan. Guud ahaan qodobada aan soo sheegay waa qodobada loo aaneynayo ama keena lafa xanuunka gaar ahaan jilbaha ama balooya xanuunka. Fadlan haddii aad leedahay ama aad qabto jilba xanuunka oo ay kuu soo raacaan ama ay kuu weheliyaan calaamadaha aan sheegi doono, waxaa wanaagsan in aad booqatid xarumaha caafimaadka si baaritaano lagu sameeyo oo loo xaqiijiyo waxa keenay jilba xanuunka ama cilada meesha ay ka jirto. Calaamadahaas waxaa ka mid ah jilba xanuun ay la jiraan barar hareeraha jilbaha. Waxaa wanaagsan inaad booqatid xarumaha caafimaadka. Sidoo kale jilba xanuunka haddii ay la jiraan xanuun ama shankar hareeraha jilbaha, danqasho xilliyada aad soconaysid, iyana waxaa wanaagsan inaad booqatid xarumaha caafimaadka. Sidoo kale haddii aad awoodi weyso inaad lugahaaga fidiso ama soo laabto, waxaa wanaagsan iyana inaad booqatid xarumaha caafimaadka. Sidoo kale haddii hareeraha jilibkaaga oo isbedel guud ku dhaco, iyana waxaa wanaagsan inaad booqatid xarumaha caafimaadka. Haddii jilba xanuunka ay ku weheliyaan xumad ama qandho, hareerahana jilbuhu ay noqdaan casaan ama gaduud, xumadna ay la jirto, waxaa wanaagsan inaad booqatid xarumaha caafimaadka. Sidoo kale haddii jilbuhu ay dhaawac ka gaaraan sida xilliyada aad kubadda ciyaaraysid ama aad kufto, saacado kadib ay jilbuhu xanuun ziyaadaha ay keenaan iyo barar, iyana waxaa wanaagsan inaad booqatid xarumaha caafimaadka si baaritaano lagu sameeyo. Haddaba jilba xanuunka ama looya xanuunka waxaa jiro dad khatar uga jira ama u nugul in jilbuhu ama looyadu ay xanuunaan. Dadkaas waxaa ka mid ah dadka buuran ama miisaankooda uu sareeyo. Dadkaas aad ayay ugu nool yihiin in uu jilba xanuun ku yimaado ama haddii ciladaas ay ku yimaado xanuun ziyaadaha ay dareemayaan. Maxaa yeelay awood jilbaha uu culays ku qaadi lahaa ayaa ka badan, culays ziyaadaha ayaa saaran buurnida. Sidoo kale waxa u nugul jilba xanuunka dadka murqahooda adkaaday sida dadka naafaha ah, iyana aad ayay ugu nool yihiin ama xanuun ziyaadaha ayuu ku qabanaya. Sidoo kale xirfadleyda kubadda ciyaarto sida kubadda cagta iyo ciyaaraha kale, iyana aad ayay ugu nugul yihiin. Sidoo kale dadka qaba ama leh dhaawacyada jilbaha ama horey uu dhaawac u soo gaaray. Su'aasha kale muhiimka waxay tahay sidee loogu hortagi karaa jilba xanuunka ama lagu yareyn karaa xanuunka jilbaha? Haddii aan ku hormaro habka loogu hortagi karo jilba xanuunka,
waxa wanaagsan qofka in miisaanka jirkiisa uu la socdo mar walba uu cabiro BMI-giisa ama body mass index-kiisa. fadlan haddii aad doonaysid inaad ogaatid inuu kala badan yahay dhererkaaga iyo culeyska jirkaaga, hore ayaan uga soo hadlay YouTube channel-kayga waad ku heli kartaa. qofka mar walba inuu culeyska jirkiisa uu la socdo ayaa loo baahan yahay. haddii aad qof buuran tahay ama miisaankiisa uu sareeyo, waxaa wanaagsan in qofka culeyska jirkiisa uu iska dhigo ama miisaanku iska yareeyo, maxaa yeelay jilbuhu ma xamili karaan culeys ziyaada ah. ugu dambeyn waxaa noqonaysaa ama dareemi doontaa xanuunkaas. sidoo kale qofka waa inuu jimicsi joogto ah sameeyaa oo qayb ka mid ah daily life-kiisa uu ka dhiga, sida culaynta iyo orodka aad ayay kuwa caawinaysaa. sidoo kale haddii aad ka mid tahay bahda sportiga, waxaa wanaagsan intaadan kubadda ciyaarin ka hor waa inaad tababar ama training aad qaadataa. haddaba haddii aad leedahay jilba xanuunka, si aad u yareysa xanuunkaas waa inaad qaadataa talooyinka. qofka waa inuu qaataa nasiino xilliyada jilbuhu ay xanuunayaan. sidoo kale baraf ama shay diiran, kubaayadda inaad biyo diiran aad kusoo shubto ayaad waxaad saaraysaa hareeraha xanuunka oo ku jiro si xanuunkii u yaraado. sidoo kale haddii xanuunka uu jilbaha aad ka haysatid ama aad dareemaysid, sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaad bantaajo aad ku xirtid ama cadaadis aad saartid. haddii barar ay la jiraan jilba xanuunka, iyana waxaa wanaagsan inaad lugahaaga qaybta saraasaan usoo qaadid ama meel aad saartid si bararkii uu kaaga yaraa. haddii intaas aad samaysid oo wax isbeddel aad arki weysid oo xanuunkan uu jiro, waxaa wanaagsan inaad booqatid xarumaha caafimaadka si loo hubiyo ama loo ogaado waxa keenay. daaweynta jilba xanuunka waxay ku xiran tahay waxyaabaha sababa. baaritaano dheer kadib, dhakhtarka asiga ayaa daawooyin kuu qori kara markuu ogaado waxa sababay, hadduu infection yahay ama haddii ay dhaawacyo kale ay jiraan. fadlan ha iloobin inaad muuqaalka share garayso oo aad gaarsiiso asxaabta kuuga xiran si ay ugu faa'iidaystaan. sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo. sidoo kale xagga hoose ka wac qaar ka mid ah asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan. intaasina kusoo gabagabeynaa.